waxaa laga yaabaa inaad moodo in dadkan beeraleyda ay jarayaan geedaha qumbaha oo ay baabiinayaan, laakiin maya, sidaas maaha daawade. halkani waa dalka Vietnam, halkaasoo dadku adeegsadaan hab gaar ah si ay guryahooda uga dhigaan kuwo qurux badan. dadkani kuma beertaan geedo yaryar gurigooda, balse taas beddelkeeda waxay ka soo saartaan geedaha qumbaha ee hore uga baxay kaymaha, iyagoo xitaa xididoodii la socdo. kadibna geedahaas qumbaha waxaa lagu soo qaadaa gaadhi yar, waxaana lagu beeraa barxadda guriga iyadoo la kaashanayo mishiino waaweyn. tanina waxay badbaadisaa waqtiga, sidoo kale waxay siisaa guriga muuqaal dabiici oo qurux badan. waana farsamo cajiiba oo muujinaysa sida hal abuur kale ee dadku u bedeli karo deegaanka iyagoo ilaalinaya bilicda. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo farsamadan cajiibka sidii ayaad u aragtaa, qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto youtube iyo facebooka profileka saaranna aad subscribe dhaado.